dabcan waxaan wareysan doonaa labada kabtan ee kala wata labada kooxood ee fanaaniinta iyo waliba wariyaasha oo dabcan maanta wada ciyaaraya kulan isdhaxgal ah ugu horeen dulyar ayaan ku bilaabayaa bal dulyar sidaad u aragtaa kulankan aad iyo aad waa mahadsan tahay kulankan kulan qiimo badan way runtii waana kulan saxafiyiinta iyo u dhaxeeya fanaaniinta waana kulan isdhaxgalka bulshada waana kulan aan ugu talagalnay in arrimaha nabadda iyo dibulsiinta iyo saaxiibtinimada iyo soo dhaweynta ay ka qayb qaataan nimaana saaxiibkay ayaa hadda tiimka kala wata runtii waa kulan aad u qiimo badan oo jeclaan lahaa waliba in sidaa loo joogteeyo kooxa looga dhigo haddii aan lahayn xataa dumarka laftirkooda inay markooda cayaaraan waata waa maasanta dulyar markana labadiisa kalaan iyo waliba fanaanka nimcaan hilaac bismillaahir rahmaanir rahiim run ahaantii kulankan maanta waa kulan aad iyo aad u qiimo badan in muddaana aanu qabanqaabinaynay waxaan ugu talagalnay barnaamijyada isdhexgalka bulshada ama barnaamijka nabad iyo nolol run ahaantii waxaanu ku tala jirnay inaanu joogtayno kulanada noocan ah waata aad baad u mahadsantihiin dulyar iyo nimcaan hilaac ciyaarta ayaan gudagalaynaa maadaama ciyaarta xiisadeeda la wada sugayo ahaanteeda bal aan aragna qadarkee waxa uu ku soo kordhiyay ciyaarta xilli badal lagu sameeyay shaawe gool waa tahay waxa uu dhaliyay xidiga la yiraahdo xasaasi oo kamid ah لاعبينta matalaya saxafiyiinta Soomaaliyeed gool aad u qurux badan waliba hatay kubadii minka hadana way bilaabatay gool yeebar daawadayaal wariyaasha ayaa dabcan goolkaasi helay fanaaniinta qadarkeeyo ayaa iminka ku soo biiray oo badal ku soo galay xilli badal lagu sameeyay shaawe oo kamid aha weeraryahanada matalaya fanaaniinta Soomaaliyeed kubadda ayaa lagu celinaya kubadda aad u qurux badan ogaa kubaddaasi waxa baasay Shaafici waliba saxafiyiinta waatan kubadii dabcan waxa uu baasay numberka 5 ee xidiga matalaya fanaaniinta Umar Gaxtaani ayaana goolkaasi dhaliyay saddexaad ahna matalaya dabcan wariyaasha Soomaaliyeed habeysane waata qadarkee ayaa gool u dhaliyay oh my god dabcan waxa uu Saadiyo dabaaldeg aan inna caadiyeen bal ii casay kobaha la lugta bal tirtiraya ka dhacday heesayad maad oo gabdhaha Soomaaliyeed ama yarta way shidan tahay yarku way shidan yahay in loo qaado inna caadimeen sidoo kubad inta ku taagsaday arag dabaaldeg arag wooba yasabi ciyaartooydan ha isma wax celiye ma lahan ayuu yiri qadarkeeyo inna balaa'iban caadiyeen tahay geesaska ayuu eegay qadarkeeyo waxa idin qaadina kubadii qabyowday marka hal laba ay raadeen daawadayaal ay noqoto ciyaarta waxaan u dhaliyay kooxda wariyaasha laacibka kooxda dekada ee Atoosh marka Saadiyo ka waran ciyaartu waxay noqotay hal laba barbara marka yaa loo qaadi doonaa hees maanta bal asleeda kubad la iskaga daw imaanaya maanta labada waxaan wariyaashanahay fanaan waxba igama gelin wariyaashan taageersanahay waa naga dhaliyeen fashil.com waaye laakiin waxa waay anigu wariyaashan taageersanahay mar waliba ama boodboodaan saaxiibada kale iyo saaxiibadii shaaw watay iyo nimcaaniga iska ciyaaraan laakiin waa badinaynaa oo anigu waxaan taageersanahay galabta wariyaasha ciyaarayaan taageersanahay walaal xidigii dhankoosa asaas sheegtaba uu garoomada ka maqan yahay dhakoosow hal su'aal ayaan ku weydiinayaa markaad mikrofoonka qabsatay oo aad tiri waxaan taageersanahay wariyaasha gool ayaa lagu soo dhaweeyay marka adigana waa ka maqantaa oo dhaawac ayaa uga maqantaa galabta taasoo lama oran karo ciyaaryahankan waa ciyaaryahan shirtiisa wad sida hore u sheegtan waa Messi waa sida nimcaan waa kubad abuure dhaliye dabcan iminkana kubad ayaa u suran uu tuuri doona sidii muuqata laad xora nimcaan hilaac جول نمعان هلا جول يودني نمعان عبد الرحمن سيلا وشافي وصل الشيء بلسيون جول وانا يكلنا نمعان عبد الرحمن حسن قبل كيو وشرياش دبال دق وانا يوصلنا ويمشي ورياشي سعدي وما انت والله بتمنيا ورياشي والله بتمنيا نمعان عبد الرحمن سيلا
dabaaldeg aad u wacnay oo qabiilkiisa nimca ka waran waa sidaa sheeg dardar aad u wacnay oo la soo galay waa meesigaas kooxda wariyaasha goolahayaha xulka qaranka ayuuna ka dhali gool aad u wacan waa tahay daawadayaal sidaad arkayseen ciyaartii quruxda badneed waa ay soo gabagabowday una dhexaysay fanaaniinta Soomaaliyeed iyo waliba saxafiyiinta bal markan Saacadiya ayaa ay garab taagan kana mid ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed oo taageeraya maanta oo halkan u yimid in ay taageeraan fanaaniinta Soomaaliyeed bal Saacadiya maxaad ka dhaysaa ciyaartii quruxda badneed ee dabcan guusha ay raacday fanaaniinta Saacadiya horta ma sha Allah galabta farxadeeda lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay dareenkayga maanta waxaan ku qiyaaso malahan maadaama ay fanaaniintii aan taageereynay oo anaga magaceeni watay magacii fanaanimada oo ku guuleystay ma sha Allah aad baan u faraxsanahay wiilasha oo wariyaasha ayagana sidoo kale waa u mahad celinaya ciyaartan oo ma sha Allah quruxda badan ee soo qabqaabiye waxa dhan waa u mahad celinaya laakiin galabtii aad baan u faraxsanahay guushin waa la gaaray bal Saacadiya markii kugu horeysay miyay tahay oo aad fanaaniin aad sidaan oo kale aad u taageerto aad garoon u imaato dartooda waa maalinkii igu horeeyay aan imaado meel banooni lagu ciyaarayo waxaan u imaaday soo dhiirigelisay waxay tahay maadaama ay fanaaniinta ciyaarta ku jireen deebo ma fadhi ima biyaalaba waa inaad sacabtuma waa tahay bal Saacadiyo ma waxaad dhihi lahayd fikrad ahaan kulankan hala badiyo oo maxaan ku yiraahdaa in badan ha lagu soo celceliyo miyaad dhihi lahayd masa kulankan kaliya lagu kala tagaad leedahay ay meesha lagu kala taga dhima xataa waxaan jeclaan lahaa kubadda kolayga oo kale gabdhaha fanaaniinta iyo gabdhaha wariyaasha in lagu tartansiiyo anigoo kale banaysanaysa adigoo kale Saacadiya aan ku balansanaya maadaama timid ay aad tahay aadan ugu faraxsanahay walaashay qaaliye waa tahay aad baad u mahadsan tahay Saacadiya siman dabcan fanaaniinta ayaan guud ahaan wareysan doonaa markan waa tahay daawadayaal markana fanaanka weyn Maxamed Tobanle ayaa hor taagan Maxamed Tobanle bal dareenkaaga ka waran maadaama aad kamid tahay taageerayaasha fanaaniinta oo aad adiguna tahay fanaan weyn wallahi maanta dareenkayga ma qiyaasi karo waxa way fanaaniinta kaalin weyn ay buuxiyeen maanta aad iyo aad u faraxsanahay maanta aad iyo aad u faraxsanahay waxa meesha waxay keentay farxad waa insha Allah guulaana kala tagaa bal adigu xidigaha ka maqan ayaad ku jirtay fanaaniinta ma dhaawac baad kaga maqneed ma sacabsi mid uu noo sheeg ma ana xogaa dhaawaca kaga maqnaa laakiin qalbiga ka ciyaaraya waa tahay aad baad u mahadsan tahay fanaanka weyn Maxamed Tobanle daawadayaal waxaan ku guda jirnaa ciyaartii xiisaha badneed ee u dhaxaysay fanaaniinta Soomaaliyeed iyo waliba saxafiyiinta goordhow waxaa la bixin doonaa bilado oo dabcan loogu talagalay xidigaha iyo waliba kooxda labada dhinac ee kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad Shooble oo kamid ahaa fanaaniin aan iraahdo wariyaasha Soomaaliyeed ee dabcan ciyaaraya kulankan bal Shooble sidaad u aragtaa natiijada ciyaarta ay ku soo idlaatay yes good game sababtoo ah kulankii ugu horeeyay oo labada ciyaaro waan ku faraxsanahay walaal natiijada ka soo baxday si wacan aan u ciyaarnay kooxdiina u qalantiinay badisay ayaa badisay Soomaalidu waxay tiraahdaa labada bir isku dhacda mid baa u jabtaa ama labada dhex isku mid baa jabtaa marka waan ku faraxsanahay ciyaarta waxay ku dhamaatay waa tahay Shooble aad baad u mahadsantahay daawada
soo dhaweeyay inay guusha qaadaan oo tiimka labaad ah second choice galay waxaan ku soo dhaweynaynaa kabtan Muday soo dhawo kabtan وعنكي هلا كلا وعن هلا وريا حق دور سحونا اني قال وردين اسك قرقرتا ماشيين فدينا وريستا وايدين ما هنا تشاو عبد الفتاح شاوي يا يهور تاجني منك أو هاوريها نمثلية فنانين الصوماليات هاي عبد الفتاح قلبت aad baan u faraxsanahay maadaama aan saxaafadda oo idil aan ka badinay ayagoo noo soo watay seer aan noo soo watay horyaalka qaranka ka dheela inaan ka badino sharaf bay noo tahay anoo matalayay fanaaniinta Soomaaliyeed iyo dhalinyarta Soomaaliyeed magaaladan ku nool waxaa sharaf noo ah inaan koobka ka qaadno saxaafadda idil oo dhan oo maanta isugu timid halkan iyagoo seer aadooda soo watay واتهاي أد بعض ما صنتها يا عبد الفتاح intii tooska idinka imaanaysay garoonka weyn ee Toya Stadium una dhaxaysay ciyaartii xiisaha badneed fanaaniinta Soomaaliyeed iyo waliba saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaan intaasi ku soo xireynaa